qarax khasaare geysta oo lala eegtay ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya wararka laga helayo gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay qarax xoogan uu ka dhacay qaybo ka mid ah gobolkaasi kaas oo lala eegtay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya qarax oo ahaa miino ayaa si gaar ah ugu dhacay wadada xiriirisa degmada Wallaweyn iyo deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeellada Hoose ila dadka deegaanka ayaa sheegaya in qaraxaasi lala eegtay kolonyo ay wateen ciidamada militariga Soomaaliya xilli ay ku socdaalayeen halkaasi ugu yaraan 2 askari ayaa ku dhimatay qaraxaasi iyadoona ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan sida ay xaqiijiyeen ila lagu kala soon yahay sidoo kale qaraxa kadib goobta waxa gaaray ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab iyagoo baaritaano kooban halkaasi ka sameeyay weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka degmada Wallaweyn iyo saraakiisha ciidamada xoogga ee dalka ee ku aadan qaraxaasi inta badan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro qaraxyo ah iyo kuwa dhabagal ah ku qaada ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya.